Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Monday. Week haduu noo bilaabanaya maanta noogu horeyso soo dhawaada walaalahay. Saaga toole waxa weeyaan beginning of the week week labaad weeyaan insha Allah idil wadaaga cuntada waliila arka videogan. Okay, saaga waxa waaye bologna rabaa inaan sameeyo. Bologna-gaanito wuu igu cusub yahay. I don't know. waan ka wiswisay inta da idin sheego soo waa shiilay dabkaan isticmaalay cheese-aan u dhex geliyay laba xabba midkiiba siiyey way ka helaan aniga laakiinse inta da idin sheego I don't like it, but anyways saa ujeediin waxaan sameynaya burger waaye iyo fruitkooda xooda u jarjaraya beginning of the week waayaan inta kaleeto hopefully maaragtay maalmo u sameynaya laakiin waxaan rabaa inay iyaga la qabsadaan samaystaan kasoo la koraya. Okay, so walaayna tusiyo inta dhameystiran walaalay hore idinku sheegay inta carruurteeda aniga sanadkii hore iskuulka ayaan u ogolaaday inay cuntadooda xooda samaystaan just marna usmaya marna ayaga samaystaan most badankood ayaga samaysanay sanadkii hore sanadkan inta maadaama bilbilowgii yahay ana waxaan jeclaaday inaan maaragto sameeyo and then video-ga noogu duduwaaya insha Allah waa joojin doonaa like waxyaalo badan oo waxa jirta la soo weydiiyay sida cream cheese-ka isticmaala camal aan ku daro insha Allah videoga saddexaad oo video-ga ka arki doontaa insha Allah durbidno cream cheese waa waxaan isticmaalay cream cheese waa ku tusinaya picture-ka soo eegay waxiis laakiinse waxaan rabay inaan ku dhiirigeliyaan ku dhaw carruurta jaanis inaan siino waaye wixii adiga haddii example-ka u noqotay wax walba laga arko waa lagu daba dayanaya maanta fruit fara badan waxaas u jaraaya adaa arki doonto maalinta ay wax samaystaan video maana ka duubay maalinta talaadada because tabar buu hayna oo ka caawa xanuunsanaa andana maalinta Wednesday-da aan tusinaya waxaan maaragtay u sameeyay. Okay, waa kana wixii oo dhan soo diyaariyay tube isnaagaanito Walmart-iga brandkiisi weeyaan waxa weeyaan granola bar oo apple iyo cinnamon ah sandwich-kooda inta ku jiro fruit-koodii waa idin tusiyo waxa waaye carrot cucumber pear and apple and grapes halkaan salad dressing ugu jiro dib ahaan u isticmaalaan iyo strawberry apple weeyaan sauce-kaas qaadadooda mar walba napkin aan usii duuduubaa so at least ma wasaqoobaysa mugta koskaan kasoo gadan jiray but I don't know lately lama cabi jirin so iskuulka like waa la cabaya because choice lama laha mugta and then biyahooda that's it. Okay, maanta yoobka inta la geliyay biyahooda boorsada backpack ay gashtaan dhinaceeda so kana gudaha la gelinaya that's it qof walba waxa waaye done. waa maalin kale shalay toole saan hore kuusoo sheegan ku dhahay shalay toole waa u gambinay maalin talaadada ayagaa samaysteen I have no idea xataa waxay samaysteen runta haddaan idiin sheego because waan ka xanuunsanaa moogta maanta arbaca waaye insha Allah durbidmo waxaan rabay inaan warbadi idiin sheego laakiin waxaan dhahay igada shaqantooda qayladooda buuqooda iyo gadaalka duuba marka waa idinka daayay warkaas faraha badan dhiirigelin waayo videodan aan kula wadaagayo walaashayda insha Allah waxaan rajeynayaa maaragtay inaad at least fikrada ka qaadatid aad nafsadaada aan kugu dhiirigeliyo in maaragtay ilmaha aad encourage garaysid inay wax samaystaan ayaga hadda adiga wuxuu samayso buubsiisid maalintii maaragtay aad ka xanuunsatid waxay samaystaan ma yaqaanaan meel wax ka bilaabo ma yaqaanaan so waxa waa inay kula shaqeeyaan markaa u sameynaysid so maanta waxaan sameynayaa bolonigii waxa waa islinta aan sameeyay camal maalin arbaca waaye laakiin waxaan ka bedelay unba qudaarta aan ku daray maalintii hore waxaan sameeyay only cheese iyo hilibkaas kaliya u sameeyay but maanta waxaan ku darayaa xoogaa yar qudaar iyo waxaas aan ku daray doonaa insha Allah u arkaysiinba videoga iyo cheese-ka caadiga slice-ka naga dhamaaday cheese-kan oo caadiga ha noo jarjaray oo waaweyn uma sameynaa wax badan laakiin waxaan u sameynayaa hilibkan isagoo diyaar ah ayuu diyaar yahay freezerka fridge-ka oo grocery-ga markaan guriga keenay shalay toole waan ka wasasay runta idin sheego laakiin markaan ka kariyo saan u sameeyay arkeen way ka heleen marka maanta si kale aan u tiraaji gareynayaa waa shiilaya bad waxaan isticmaalayaa birta kale bir daawada oo girgirka leh marka waxaan sameynayaa pickle oo yaalo oo dhalada ku jiro oo diyaarka ah iyo cucumberkii aan ugu dhigaya because salad ma yaalo. Okay, lunch container koodii ay gashteen waxaan dhahay inta kor ku maqnaa bal waxay samaystaan arko fiiri. Okay,
grapes iyo waxaa la gashtay cucumberkii oo yaryariis ah inta fruitkan waa kii aan shalay soo gaday haye snack ahaana loo qaatay laba yoogada halkaas ku jirto iyo snackii kaleetana intaa la gashtay okay good for him qaadadiisa halkaas ugu jirtaa xaawana sidoo kale samaysay iyadana waa la isku daba dayanaa moogta nin walba waxa waaye qaadadeeda waxay halkaas gashatay iyo biyahooda that's it waa noo dhammaatay intaa le waayno carruurta marka waxa waaye adiga example u noqo waxaa adiga usi sameeyey sida lagugu daba dayanayaa okay maanta waxaan kula wadaagayaa maalinta khamiista waaye videogan inta isbuuc dhan aan raba inaan noo sameeyo insha allah video friday noo soo dayn doonaa hadduu rabbi idmo saa ujeedaan wixii oo dhan anaa sameeyey okay waxay iga caawiyeen runta idiin sheeg waxa waaye lunch containerkooda biyahooda iyo wixii markii iyaga ay baaqulyadooda ku shubtaan iyo iga daba nadiifiyaan jikada maarkino marka geedka waxaan kasoo gatay Costco waxa waaye salad camal waaye saladka ku darsan kartaa waa karin kartaa waana maaragtay sida sandwichka hadda aan ku dari doonaan insha allah cream cheese kana intusina hadda idin tusina videoganeeto waxaaseeto xaawiyare ii dhaqday ii jarjartay can you believe it xaawo maasha allah tabaarakallah ii soo dhaha way weynaatay inan yar waxaan isticmaalay tortiyadaneeto Costco aan kasoo gataa walaalay kanad ila joogo Costco-ga wuu ka fara badan yahay kan kale oo grocery-ga caadiga yaalo marka waana ka raqiisan yahay markaad grocery-ga caadi kasoo gadanayso cream cheese waa kana Costco aan isagana kasoo gataa 500 gram ku jirto bahalka cad oo mar walba aan rootiyada waxaas marsano kan waa cream cheese team hartan ka tagta cream cheese si koogu soo buuxinaa waa aragtuma adilay controleysi kan labadan bari ay kareen iyo buuxsadaan ilmaha ayaga naftirkooda bagelkooda waxooda but waan soo gadanaa aad iyo aad u jecelnahay wuu qaaliyo hadda waa goor raqiis ahaan jiray $7.99 $8 aan ku heli jiray hadda waxa waaye hadda $9 ku heshay nasiibka ama $10 daf waaye so waxaan sameynayaa laba tortilla ah aan qaaday xabada haddaan samaysay waxa waaye dhib meel waa markaa la laabaysay ma fahmino waxaan ugu badiyey cream cheese-kana waxaa keenaya waxa waaye hadhowta soft uu noqonayaa aan salaatadii iyo qudaartii wixii aan ugu dari doonaa iyo cucumberkii wax yar oo kajabna ugu darayaa but halkaaneed wax kasta waa ku dari karay except inuu qoyo ma la rabo wax kasta oo qalalsan aan ku dari karo malaay xataa ugu dari karaa matuuna ama hadduu chicken iyo oli lahaa ama maxalkii hilibkii aan shalay camal sandwich ugu sameeyo ugu dari kara laakiinse maadaama ay qudaar maskaxdeeda ku jirtay waxaan dhahay inoo wad caafimaad ugu jira hilib 2 bari cunayeen 3 bari malaay cuneen maalinta kale ayaga samaysteen tuunada ayaga u fudud ilmaha moogta inay samaystaan anyways waa ujeediin sida quruxda badan ka jab yaraan dhag ugu siinayaa moist way ka heleen you know what happened intay soo cishteen maalintaas markay soo kasoo noqdeen cunta la soo celiyay because oo ku sheegay maalinta hooyo samayso cunto fara badan ka dheerjiya maalinta iga samaystaan wax yar qaataan oo qudaartii waxaas ah ana qudaartii iyo waxaas u badiyaa moogta soo ujeediin waa kala jira gudahan waa intusinaa insha allah hadduu rabidmo videodanet waxa waa dhiirigelin waaye hadduu rabidmo waxaan samaysanaynaa saan hore kugu soo sheegay jadwalkii oo maadaama shaqo bilaabay guriga systemiis wixii soo dhan waa idin wadaagaa idinkana walaalahay oo rabeen ka faa'iidaystaan iyaga samaystaan dhiirigelintaaseeto oo video kale waa insha allah hadduu rabidmo soo isbuucaaneeto waa kana alaabtaan idinla wadaagaya tortilla warqadahan ugu duduubaa warqadahan inta idin sheego because warqadaha marka qaarkood gurashada qaarkood lagu gado bus iyo waxaa ka baxo wayna qafiifsan tahay way qoydaa tan Costco-ga brandkiisa waaye Kirkland ay dhahaan Costco-ga brandkiisa beela ah bus ma ka kacdo wax kuma dhagdhagaan qoyaankiisa xataa cabaari qaadataa biyaha wuu aruursadaa soo aad iyo aad u jeclahay marka inaan kula wadaagaan rabitaasna warqadan aan isticmaalay sandwichka video ka horeeyna waxa waaye kii oo bakeryga ovenka lala gelinayay soo ujeedin cuntadii saas ku soo baxday alaabtaas inta u sameeyay maanta school lunch oo yaa sameeyay soo aragteen waxaan u sameeyay tortilla grapekii plum baa la dhahaa fruitkaasito applekii labadii nooc kala ahaa rice pudding that's it tubkooda yogurtkooda iyo biyahooda finish okay walaalay waxaan rabaa inaan ugu daro Friday-da laakiin waan ka daynaya insha Allah Friday waxaan ugu soo diri doonaa next week's video jazakallahu khayr daawanaysay haylo inta subscribe hadaa ugu cusub tahay la sii wadaag walaalaha kale dhiirigelin waa videogaana insha Allah waa inoo video dambe khayr idin rajinaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh